حكي وحال وري أن رجلا صالحا حسدك مثال كيسي بالوضاء إنه وحني هاي حسدك أن الرجل صالحا وناكسا يا كان وحوى يجالس مثل فريس أمير المؤمنين المعتصم إنك يعني أمير المؤمنين كان معتصم بن هارون الرشيد هارون الرشيد بعد ذلك معتصم بالورنجري أي لفريسان جري ويدخل عليه من غير استئذان إذا الله أنبو مدحوينها أسو قل جري وينصحه النسيحين جري هكذا الباب كيس اللي جمع علني يعني وحكوب بحيي أميرك وحكوب بحيي ننكاس الباب كله جمع علنك رسول الله سعودي يسكسو قلي ولا فريسان مركز النسيحين يا خير كفر يا وكذا فغار منه الوزير ننكي وزير كيساها أيام مركز كم صايري وي فحسده واحد هذيك وزير كاجا يعني سيدا أميرك وكوما كالصونة نين كان شعب كوس وصو صعدوا من مدحونا اسكيجي قلي أصله حتى إذا صور دي أن إذا كسو قادن محوية وحسده وي وقال في نفسه وحويري إن لم أقتل هذا الرجل نين كان هدانا الدليل أخذ بقلب أمير المؤمنين أمير المؤمنين قلبي يسوع قادن وكاجا هصمر يا جو برينا يعني هذيك هو الريحة يا نين كان دو ويسنا ياو marka ninkan sifadii aad ku dili lahayd ka shaqeey buu marka xeelad buu sameeyay fadakhala yawman maalin buu soo galay ala al-mu'tasim wasiirkii buu soo galay waqaal lahu ya amir al-mu'minin inna hadha ar-rajula ninka yaqulu lin-nas dadka wuxuu sheegaa ninkan markasta ku yimaado ee kula fariisto ee saaxiibka u maleynayso aad jeceshahay wuxuu dadka ku yiraahdaa innaka abkhar ninka amir al-mu'mininka ninka madaxweynaha ma taqaana waa wax af badan way afkiisa waa uraya taasoo dadka u sheegaa abkhar way abkhar waa nin af uraya waaye oo hadda marka inuu af uraya saas inuu yahay oo dadka sidaa u sheegana calaamad baan kuu sheegayaa in arrinta hadalkayga uu run yahay wa amaratu dalika calaamadeedu waxa weeye annahu idaa qarraba min qorku kuu soo dhawaado yadacu yadahu calaa anfihi liallaa yashuma raa'ixata albukr ay mar alle markuu kuu yimaado gacantu afka saaran doonaayo adigoo u fiirsa hadda kahor omaad fiirsan jirin muxuu marka gacanta sanka u saaranayaa wuxuu leeyahay afkiisaa ur badan oo lama ag fadhin karo saasuu qabaa marka adiga markuu ku imaado u fiirso faqaala wuxuu yiri in sarif iska tag buu yiri hatta andura fi dalika bal waan fiirin doonaaye waxa sheegaysay inuu jiro iyo in kale iska tag buu ku yiri fa kharaja ninki yani waa baxay wasiirkii waa iska baxay wa talatafa bir rajul ninki buu hadana hoosta ka galay hatta ataa bihi ila manzilihi gurigiisii buu geeyay wa dabakha lahu da'aman wa aktara fihi min at-taw ninki buu intuu u tagay wuxuu yiri maanta anaa ku marti qaadaynayo aad baan ku jeclahay maanta marna hay diidin marka waayahay bal nawadan ku raacayay cuntu u sameeyay marka cuntadii buu toon ka buuxiyay soo toon ugu waday cuntadii uu kariyay ayuu toon ka buuxiyo marxaba dadin ku soo yeeray oo maanta kaliya ku ikraamay cuntadiisi miyaa diidi kartaa cuntadii uu iska cunay marka toonta lahayd uu soo cunay markuu cuntadii soo cunay ayuu yiri asagoo cuntadii cumay u ogaaday ayuu wuxuu ku yiri wuu xusuusinayaa inuu hada god ku sii riduu rabaa waan ku ogahayo ninka amiirka aad baad ugu kalsoon tahay amiir al-mu'miniin markaad u tagtaa maanta yani cunto toon laad aad u cuntay haday iska ilaali amiirku yani ha ku dhibin riixdaada ha ku dhibin yani afta qabo markaad u dhawaad af qabo si ayna riixdaada ugu urin marhaban ninki marka uu tagay oo amiir al-mu'miniin buu u tagay mar alla markuu ag fariistay wuu naseexay sida caadada u ahayd markaasuu bal soo dhawow inta agtayda soo fariiso markuu yiri soo dhawow maanta de cunto toon lu ka soo dhargay wuxuu ka yaabay amiir muuminiin inuu ku dhibtooda yani riixdiisan uraysa waay faaya wada'a yadahu ala fami markaasuu afka saga saartay afku gacanta u saar soo wixii ninkii sheegay ma marka amiir muuminiin wuxuu yiri walaal ninka wuxuu sheegay waa run ogow oo ma la arka markuu soo ag fariisto hadii yani halkaas iga fariisto hadaan soo dhaweeyay saan muusan ku qabsadaa miya warqad buu qoray markii marhaban amiirkana waxa caadadiisa ahayd mu'tasim caadadiisa waxa ahayd haduuba warqad ku soo qoro warqada waa cadiyo ninka waxa la siiyo qadar intuu la kaado in madaxweynaha ka loo xoogaa fiican buu qori ay wax yar ma qore marka ninka waxa la siiyo uu warqad ku soo qora waxa kale ku soo qori laakiin maanta wax kale ku qoro sidii lagu yaqaan laakiin waxay ahayd ninka waxa la siiyay warqadan qaado ku yiri warqadii uu iska soo tagay kii hadda waa sugayaaba xaq uu taagay iridu uu taagay waxa soo qabsan doonuu leeyahay ninka mar alla markuu ka soo baxayba waa ka ninkii oo socdo ba waran maxaad la soo kulantay hadii amiir muuna u tagay oo sida awal baan ugu tagay jiray warqad buu ii soo qoray maanta wuxuu leeyahay ninkii hebel ahaa ee magaalo hebla joogay oo la tago warqada u geey
saasuu igu yidhi wax alla waxay tahayna ma aqaano warqadda kolley ninkaa unbaa furaya de adigu ma furi karta warqadda mawda ilaa waa ina ninkaa unuu furo wey ninkii loo qoray warqadda maxaana lagu aqoon jiray warqad haddii lasoo qoro waxay ahayd yani silo unbay ahayd yani in wax la isisiiyo oo la isxidhiidhiyo unbay ahaan jirta madaxweynuhu saa unbay caadadiisu ahayd ay ninkii markii oo damac baa galay war wuxuu yidhi nin yahow waa yahay khayr allah ku siiya dhinaca yani khayr badan baa watay wuxuu yani markiiba ismoodsiiyey wixii aad sheegaysay hadde maba suurtagelin ogow amiirulmu'miniin ma fahmin maanta ninkii wuxuuba kasii qaadayba darajuu ka soo qaaday warqad baaba loo soo qoray maanta waxbaa la siinayaaba xoolaaba la siinaya marka wuxuu yidhi aniga iska kaysiyey warqadda suba qaar waxay qoraan wuu ka baryey oo wuxuu yidhi iska kaysiyey warqadda aniga isii adigu hadda berri baad u tegi maalin la arkaba waad u tagtahay aniga isii middan maanta marxaba laakiin riwaayadana waxay noo qoraysaa wuxuu yidhi ninkaas iyo in loo socoteeyo waaba fog tahay lug meesha waa loo lugaynayaa waxaasoo daala maxaa kuu wato 2,000 baan ku siinaya adiga 2,000 qaado oo adoon safar iyo waxba gelin aniga isii warqadda anaa ninka oo la tegaye wuxuu moodayaa 2,000 wax kasii badan inay ku qoran yihiin yani wax weyn baa ku qoran buu isleeyahay meesha markii uu ku dhegay oo uu dhibay wuxuu yidhi hada qaado iska qaado orod 2,000 siiyo bal iska qaado adiga la kulley hadda adiga naftaa nin madaxaa tahay kuma diidi karee amarkaaga waan yeelay ninkan waa iska lilaahi qaado warqaddii buu ku dhiji kiisii oola sii ordayay warqaddii buu u geeyey ninkii warqaddii waa furay ninkii hortiisa ku akray markuu fiiriye warqadda maxaa ku qoran mal alla markuu ku yimaado ninkaas warqaddaas ninka warqadda wata markuu ku yimaado gawrac kurka ka go yaa ku qoran markaasuu wuxuu yidhi warqaddan waxaa ku qoran aad ii keentay hadduu kuu yimaado ninkaas aan kuu soo diray ee warqadda wato fadbaxu gawrac ee kurka ka go baa ku qoran markii unbuu haddee naxdin dhabarka ka go wuxuu yidhi warniyow warqadda anuu iskama lahayne nin baan ka soo qaaday warqadda anuu ma lahayn nin baan ka soo qaaday marka dee anigu waad ogtahay ninkii wasiirka ahaa baan ahay dadka wasiirada dhan u weynaa marka bal ii kaadi oo muddo ii dibdhig intaan bal wasiirka aan amarka waxaan arrintaan u bixiyey bal intaan ka hubsanno inay waxaan dhab tahay iyo in kale warqadda nin kalea loo soo dhiibay maya anigu amarka amiirulmu'miniin amarkiisa anuu ma daahinayo waa fulinaya ninkii kurka ka gool la yidhi ilaa waa inaan ka gooy see kaloo la yeelayaa markiiba dee asagoo meesha cabaadayo amar bixiyey oo askartiibu la hadlay wuxuu qabta kurka gooy kow kurkaa laga gooyo markiiba meesha baa lagu dilay waa wasiirkii dhammaan ninkii magaaladu iska jooga muddo ayuuna u imaanin muctasim amiirulmu'miniin kumuu soo noqonin maalin dambeba waa socda meesha ugu yimi markaasuu bal nin yahow warran wuu la yaabay ninkii oo socda markuu u yimid wuu la yaabay warran buu yidhi aaway warqaddii aan kuu qoray iyo qisadaadu maxay ahayd wuxuu yidhi warqadda aan kuu qoray markaan kaa baxayba ninkii wasiirkaa hebel ahaa baa igu dhegay oo tabaan iska dhaha waay ilaa aniga isii wey ta waan iska siiye waay haye ninkii markii xagga uu tegayna dee warqaddii saasaa ku qornayd baa la yidhi oo la dil ninkii waa la dilay kurkaa laga gooy oo maxaad yacni markaa la iswarsadayba maxay ku dhacday arrintu aniga wuxuu ii sheegay ninkaan inaad dadka u sheegto yani afkaagaa oraye oo dadka aad u sheegtee bal warran ma jirto waxaad yaa amiir almu'miniin hadal aniga waxaas hadalkaygi maaha ee waxaan maalinka maxaad tanka u qabsatay buu maalinka markaad imaad waxaan u qabsaday maalinka ayadaydan kuu imaanaya asaga naftiisa intuu cunto ii kariyo toon iga buuxiyey wey markaasuu wuxuu yidhi markaad amiirka u tegayso nin yahow yuusa riixdan ku dhibtoonayna tanka qabso markaasuu ogaaday muctasim inuu khiyaanada dhanba ninkaan ka dambeeyey muxuu ku yidhi markaas run baad sheegtay buu yidhi laakiin wuxuu yidhi maxaa ka caadalnimo badan waxaa la yidhaahda xasadka wey xasalku cadaalad badana bada'a bisaaxibihi buu yidhi saaxiibkiibuu ka bilaabay oo faqatalahu waa dilay horta marka xasadku waaba caadil buu yidhi waa caadil waa yahay